qoyskani danyarta oo degan koonfurta magaalada Kalabaydh ee gobolka Gabiley ayaa haysta caruur ku dhalatay bilaadub isla markaasina aan lahayn gebi ahaanba dubka sare ee bini'aadanku leeyahay kuwaasi oo ay dhibaato weyn ku hayaan cadceedda dabaysha qabowga iyo sidoo kale cayayaanka duqsiga. Farxiye Axmed Yuusuf oo ah hooyada dhashay caruurtaasi ku dhalatay bilaadubka ayaa ka warbixisay duruufaha adag ee ku gadaaman nolosha caruurteeda, sidoo kalena waxa ay ummadda muslimiinta ah guud ahaan ka codsatay in ay soo caawiyaan si ay u geyso cisbitaalada isla markaasina loogu daaweeyo. waxaan ahay Farxiye Axmed Yuusuf inantaas waa Cawa Cabdillaahi Cabdi taasna waa Hadiye Cabdillaahi Cabdi caruurta wada rataan nimcada iyo dhibta haysata 13 caruur ayay ahaayeen 7 way caafimaad qabeen 6 way xanuunsanayeen 6 xanuunsanay 4 baa dhintay labadaas iminka adduunka jooga duqsi ma qaadi karaan qabow ma qaadi karaan kuleel ma qaadi karaan walaalaha islaamka waxaan ku codsanayaa horta in lagu jiro Ilaahay baa garanay hayso alla baryaan ducaan ku codsanayaa shahaadada iyo islaamnimada aanu ka mid ka nahay waxaan ku codsanayaa in ubadka Ilaahay dartii la igu soo caawiyo nin walba waxaan ka codsanayaa in Ilaahay dartii igu soo caawiyo nin walba wuxuu awoodi karo dadka way aragtay si ay yihiin qarka way is wada cunayaan waxay isku wada cunayaan marka dabaysha ay intaas xamil laayihiin dad miyi joogaan oo nahay dadka miyi joogana waa ogtiin oo itaalkiisa Ilaahay baa itaal caafimaad qabun buu dadku ku nool yahay ummadda islaamiinta dal iyo dibad meeshay joogaanba waxaad igu soo caawinaysaa inaan dadkaas sidii aan dhakhtar u geyn lahaa ee aan